waxaa maanta degan magaalada Taleex kadib markii shalay ku dhawaad 8 ruux ay ku dhinteen tiraintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal shalay ka dhacay gudaha magaalada Taleex ee gobolka Sool kadib markii ay dagaalameen ciidamo ka yimid maamulka Puntland iyo kuwa kale oo taageersanaa maamulka Khaatumo boqolaal qoys ayaa shalay ka qaxay magaalada kuwaas oo ku sii jeeday sida ay noo sheegeen goobjoogayaal ku sugan halkaasi meel ay xabada kaga nabad galaan waxaanu la xiriirnay wariye Muqtaar Muuse jaamac oo ku sugan gudaha magaalada Taleex wuxuuna nooga waramay sida ay wax u dhaceen maxamed shaqale hadda anigu waxaan ku suganahay magaalada Taleex shalay markii ay saacadu ahayd 2:15 daqiiqo ayaa ciidanka Puntland oo gaashaaman ay waxay soo galeen magaalada Taleex waxayna ka soo galeen 4 goobood iyadoo tignikadooda wata militariga iyo ciidanka militariga iyo tignikadooda weyn wada socdeen cidna looma aabayeelin hal mar bay tignikada ka wada furtay militariga way shidayeen iyadoo tignikada magaalada lagu garaacayo oo ay qaar magaalada Jingalihiiba kala baxday ayay dadkan ciidamada militariga dadka iyagu tooganayeen waxaa la moodaysay in ay si meel gaar ah oo calaamadsan ay si xandara ku garaacayeen dowladda ama 4 gaari ku wada shidaysa hal mar si guriga madaxtooyada Khaatumo isteedaayay waxay madaxda ku degi jirtay sida bardihii shirka weeye Khaatumo lagu qabtay barda Khaatumo loo yaqaano isaga afar tiknikada si gaar ah ay rasaasti ugu yeesheen madaxtooyada sidoo kalena waxaa laga dhigay ilaa 4 tiknika oo laba sii ku jirto ayaa iyagana digaantiga ka dhigay guriga kale oo gaar ah oo si gaar ah loo calaamadsanay oo iyadana lagu garaacay qoryaha waaweyn oo Jingalihiiba lagala kacay weeysa magaalada looma aabayeelin tagafaalihii shalay ka dhacay maxaad ku qiyaasi kartaa khasaarihii shalay ka dhacay magaalada Taleex isla markaana maxaa sababay in guryaha qaar la bartilmaameedsado ilaa lama soo koobi karo khasaarihii ka dhacay magaalada Taleex maalintii shalay ahayd waxaan loo soo koobi karin meydadka ilaa hadda baa qaar la leeyahay qaarna guryaha ku jiraan inta hadda anagu aan dhaafay xalay laga qaaday magaalada Taleex waxay ahaayeen todoba waxaana loo dhoofiyay xagga xalinta oo lagu aasin magaalada Taleex daawo isaguna uu ka sii badan yahay kuwa badan oo aan loo soo gudbin xagga xaaladda jira oo iyaga laftirkoodu dhaawacyadu kala duwan yihiin targetka gaarka ah su-aasha kale targetka gaarka ah waxay ahaayeen ciidamo isku jira Puntland oo dhan oo soo guurtay xilkooda aad u farbadnay waxaa loo jeedaa madaxtooyada in si gaar ah loo ilaalinayay waxaana markaa ku jiray oo kaliya ciidankii ilaalin jiray madaxtooyada in tignikada kale marka maadaama ay Khaatumo ka tirsan madaxtooyada ku soo degto balduhuna uu yahay baldaha astaanta oo ah maamulka Khaatumo si gaar ah loo abaarsanay taageerayaasha gaarka ah ee Khaatumo iyadana si gaar baa loo abaarsanay oo guryaha gaarka ah si gaar ah waxay ahaayeen dadka ugu culus baalasha ay ka duusha Khaatumo ay guryaha ku jiraan hadda yaa gacanta ku haya magaalada Taleex magaalada Taleex hadda saacadahan kula hadlaya waxaa gacanta ku haya ilaa shalay labadii ay dagaalka soo qaadeen maamulka Puntland oo ilaa 5 galabnimo ay xabadii istaagtay hadda saacadan iyagoo baa magaalada afartii madmuusin hubkuba ka saaran iyagoo baa magaalada waa bandow wax la yiri xal ma jirin cid socodka ma jirto magaalada saaka intay dadku leekaayeen way ka taxay qof hadda magaalada Taleex gacanta bilaheeda ku jirto oo qof dhex jooga ma jirto ciidamadu xareeraha ka tabayeen waa ciidamada Puntland baa gacanta ku haya hadda ciidamadu ma joogto saacada halkan kula hadaalinayaan in ay isbedeli doonto xaaladani mar uu si noqon doonto sababahana ay yihiin arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale lagu macnaynayo oo si badan loo macnaynayo waxaana la sheegayaa in garanaysaa in xaaladdu ay isbedeli doonto oo ay isu bedeli doonto maadaama ay ahayd magaalada caasimadii maamulka Khaatumo State ay Khaatumo State caasimadii maanta Puntland gacanta ku haysa xasuuq aad u ballaaran ka geysatay in ay garanaysaa heli doonto dadkeedii caasimada waxay iyo ay dadkeedii u maqan yihiin taasoo hadda laftirkeedu ay kuwa laftirkooda cabsi badan ay xabada u heliyaan iyaga gudahooda ku jirta ee ka baqayaan in Puntland uu kaga soo fuleeyahay maamulka Khaatumo aad baad u mahadsantahay Muqtaar aad baad u mahadsan